السلام عليكم صاحبيال muuqaalkan waxa aan kuula wadaagi doonaa 5 wadan aad garanayso kuwaas oo ay naagtu guursan karto inta nin ay u baahan tahay ma ahan in marka ay nin kala tagaan ama uu furo ay mid kala guursato oo taasi waa caadi oo naagtu way guursan kartaa nin kale markii la furo balse ka waran haddii ay naagtu hal mar 4 nin ama ka badan isla aroosto waa la yaab waana wax aqliga bani aadamka aan gelin oo su'aalo badan ayaa ka imaanaya waxaana ka mid ah su'aalahaas haddii naag 3 nin ama 4 nin ay qabaan ay canug dhasho ya aabba u noqonaya canugaas balse inta aynu muuqaalka gudaha u gelin waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like saarto haddii aad nagu cusub tahay aad nagu soo biirto adiga oo taabanaya subscribe caalamkan aynu ku noolnahay waxaa jira dhaqamo kala duwan oo xitaa kuwa qaar marka aad maqasho aad yaabayso waxaa jira dhaqamo ninka u diidaya inuu guursado wax ka badan hal naag si la mid ah isna waxaa jira dhaqamo u ogolaanaya in ninka uu guursado habla badan mana ahan wax lala yaabo in raggu ay guursadaan wax ka badan hal xaas dhaqamo iyo diimo badan ayaana taageersan dhaqankan ah in ninka uu yeesho wax ka badan hal xaas sida diinteena suuban midaas oo ninka u ogolaanaysa in uu guursado ama uu yeesho 4 xaas si kastaba ha ahaatee wax aan caadiga ahayn in aad maqasho oo madaxu kula xanuunayo ayaa ah naag leh ama ay qabaan niman badan wadamada qaar waxaa ka jira dhaqamo haddii aad maqasho aadba wax aad sheegto aad garan weynaysid haba u badnaadeene dhaqamada ka jira qaaradaha Afrika iyo Aasiya micnaheedu maahan in qaaradaha kale aysan ka jirin dhaqamo waalan waa ay ka jiraan oo haddii hadda Latin America ama America oo dhan aad booqato waxaad arkaysaa dhaqamo aad la yaabto Yurub xitaa qudheedu qaraafadu ay aaminsan yihiin ayaa jira sida haddii bisha 13keeda iyo maalin jimco ah ay isku aadaan aysan baguryaha ka soo baxaynin maalintaas oo dhan balse waa la kala dhow yahay haddaba waxaa wadamada qaar ka jira dhaqan ah in gabadhu ay guursan karto wax ka badan hal nin 2 3 5 7 waxaana ugu horeeya dalka Hindiya gobolkan lagu magacaabo Jansar Bawar ee dhaca waqooyiga dalka Hindiya waxaa ku nool qabiil lagu magacaabo Kinnoor midda la yaabka leh ayaana ah in qabiilkan dhaqankoodu uu yahay mid u ogolaanaya gabarta in ay guursato niman badan dhacdo la yaab badan ayaana ka dhacday gobolkan 5 wiil oo walaalo ah ayaana hal mar guursaday gabar uu dhalay boqorka qabiilka midaas oo lagu magacaabi jiray Daughter of King Banjala oo la micno ah gabadhii boqorka Banjala waxa ayna aaminsan yihiin in ay ku qasban yihiin in ay sii wadaan dhaqankan uuna yahay mid ay ka dhaxleen aabayaashood malaha dadkan awoowayaashood kumanaasana ka hor ayaa halkii gabar shan ka gudub waddanka labaad ee dhaqankan foosha xun uu ka jiro waxaa ka mid ah dalka Kenya sharciga waddankan ka jira ama dastuurka ay ku dhaqmaan ma ahan mid mamnuucaya dhaqankan oo waa uu taageeraa in naagtu guursato ama ay guursan karto inta nin ay rabto markii ugu horeysay ee dhaqankan Kenya lagu arko wax ay ahayd sanadii 2013 markaas oo 2 nin oo saaxiibo ahaa ay ku heshiiyeen in ay wada guursadaan hal gabar adiga waxa aad isdhahaysaa yaa waay naagta ogolaanaysa in 2 nin ay wada guursadaan balse markii gabadha ay u sheegeen arrinta waa ay ka ogolaatay oo wax muran ah kama aysan keenin sidaas ayaan arooskii aan loo dhamayn lagu dhigay dhacdadan oo ahayd mid ku cusub dalkan Kenya ayaana waqtigaas aad u qabsatay saxaafadda haddaba nimankan ayaa waxa ay ka soo jeedaan qabiilka loo yaqaan Maasaiga kuwaas oo leh dhaqamo aad u layaab badan meelaha inaad ka maqasheen waa laga yaabaa qabiilkan magaciisa wax kale iska dhaafay libaaxi baa ka baxsan waayay oo waa ayba u warsadaan ilaa aragti baana ka dhaxaysa hadda waa libaaxi aad garanayseen waddanka xiga Jaina qabiilada dega waxa ka mid ah qabiil lagu magacaabo Tibet kuwaas oo u dabaaldega maalin ay ku magacaabaan Modern Day maalinta caalamiga ah midaas oo ay ku xusaan naag iyada oo nin qabo guursatay nin kale maadaama ninkii hore uu dili jiray dhacdadan oo ahayd mid dhacday 100 sano ka hor ayaa saameyn weyn ku yeelatay qabiilkan midaas oo ilaa iyo maanta nimanku ay hablaha wadaagaan waxaad arkaysaa Jaina haddii aad tagtid gabar ku leh 6 nin ayaa ay qabta waddanka xiga Nepal waddankan ayaa ah dhul xiran midkaas oo dhaca koonfurta qaaradda Aasiya waxaana mara buuraha loo yaqaan Himalaya waddankan ayaa waxa uu ahaa mid dadkiisa ay dhaqan ka dhigteen in habluhu guursadaan niman badan balse dawladii jirtay sanadii 1963 ayaa gabi ahaanba mamnuucday dhaqankan maadaama dunidu waqtigaas ay hormaraysay
ayna ahayd bilowgii dunidan casriga ah. qabiilada dega dalkaas oo badankood ay arrintan dhaqan u ahayd ayaa diiday in ay joojiyaan waxaan foosha xun, iyaga oo dowladdii u sheegay in sharciga iyo dhaqanka uu la weyn yahay dhaqankooda. tan iyo markaas guurka nuucan ah ayaa noqday mid caan ka ah dalkan, iyadoo ay jiraan xaafado dhan oo lagu qabto dhaqankoodan foosha xun. dalka u dambeeya ee shanaad waa dalka Gabon. bishii May sanadkii aynu soo dhaafnay sanadii 2021 gabar u dhalatay dalkan ayaa waxa ay baraha bulshada la wadaagtay in ay leedahay 7 husband ama nin, iyo sida ay la nooshahay dhibaato la'aan, iyada oo sheegtay in aysan imaan wax isqabqabsi ah ama dagaal ka dhex dhasha. muuqaalkeena maantana intaas ayuu ku egyahay. fadlan ha naga hilmaamin inaad halkan nagula saaxiibto adiga oo taabanaya subscribe.